iyo dalka gudihiisa oo ay ka fulisay mashaariic waaweyn. Aan ka warbixiyo shirkaddan Kinetic Engineering and Construction Company waa shirkad wadaniya iyo ay isku jiraan dad ajnabi wada leeyihiin. waa shirkad waddanka in badan ka soo shaqaysay mashaariic waaweyn ka soo fulisay. waxyaabaha ay qabato sida halkan ku arkaysaan waxa kamid ah waxaana uu sheegay in shirkadu ka soo shaqaysay qaar kamid ah wadamada caalamka iyo dalka gudihiisa oo ay ka fulisay mashaariic kale oo waaweyn ay ka fulisay waddanka. waxa kale shirkadani ka shaqaysaa oo ay mashaariic waaweyn ka fulisay waddanka Imaaraadka oo xafiiska guud head office ku yahay. xafiiska labaadna waa magaalada Hargeysa ayuu ku yaalaa. marka insha Allah hawshan dekadana iyada ayaa maadaama SDF hore ula shaqaysay mashaariic waaweyn la fulisay oo sidii la doonayay ay ula fulisay waxa SDF ku qanacday in ay mar labaad siiso mashruucan. Engineer Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan madaxa guud ee Somaliland ee shirkadda Kinetic Engineering and Construction Company uu hadalkiisa sii wata ayaa ballan qaaday in shirkaddu sida ugu wanaagsan u fulin doonto dhismaha dekadda Maydh ee haatan shaqadeeda ay gacanta ku hayso. waxyaabihii Somaliland laga qabtay ugu waaweyn oo ah dekadda Maydh sideeda. insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu imika socota. waxaan rajaynaynaa in sida loogu talagalay ay u dhameystiranto oo u qabanno ugana soo baxna sidii mashaariicdii horeba ay u dhameystiranto oo u qabanno ugana soo baxna sidii mashaariicdii horeba aanu u fulinay. dekaddan Maydh imika waxa socda surveygii biometrica oo badda la quusayo la eegayo report ba ka soo bixi doona. waxa ku xiga geotechnical oo isagana report laga soo saaray ciida la qaadayo laga shaqeynayo. waxa ku xigi doona dhismihii dekadda bil muddo ku siman alaabteedii iman doonto insha Allah taala. saasaanu insha Allah ku qaban doona hawlaha. waxaana naga go'an in aanu sida ugu tayada fiican ee ugu sidii la doonayay inaanu u gelino hawshaan loo igmaday. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Saab TV